taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sarreegaas Xuseen Xasan Cusmaan ayaa maanta tartan kubadda cagta u furay 12 koox oo ka kala tirsan maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe ee Xamar iyo ciidanka asluubta oo ku hardami doona tartankaas. ujeedada tartanka kubadda cagta ee loo qabtay maxaabiista xabsiga dhexe ee Xamar iyo ciidanka asluubta ayaa waxa uu yahay mid lagu dhiirigelinayo maxaabiista ku jirta xabsiga dhexe isla markaana kor loogu qaadayo garaadkooda. gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makaraan ayaa tallaabo wanaagsan ku tilmaamay in dhalinyarada maxaabiista loo qabto tartan kubadda cagta ah. tallaabadaasna uu ku ammaanay taliyaha ciidanka asluubta in xabsiga ayaga ku jiraan fursad u helaan dhalinyarada kale ee magaalada joogta waxyaabaha ay fursad u helaan taas oo ah in banooni ay ciyaaraan in barnaamijyo wacyigelin loo qabto in berito markay xabsiga ka soo baxaan si ay bulshada ula jaan qaadaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed howl walba ama barnaamij walba ama dadaal walba oo qabanayo inaan garab istaagno intii annaga garaankeena awoodno. gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xamar Jajab ee gobolka Banaadir Cali Cabduqaadir Faarax ayaa sheegay in isbedel ballaaran uu ka muuqdo dhalinyarada maxaabiista ah ee ku jirta xabsiga dhexe Xamar. waxaan ku aragnay isbedel aad u ballaaran oo ka muuqda dhalinyarada dhanka moralka aad ay u faraxsan yihiin waxay kala taageerayaan labada kooxood dheelayso. maanta tartanka waxaa lagu furay koox asluubta ka socota iyo koox dhalinyarada xabsiga ku jirta kamida oo biyomundallo aad ay noo dhiirigelinaysaa in ciidanka asluubta waa hooyadii dhaqan celinta dadka Soomaaliyeed waay. taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed Sarreegaas Xuseen Xasan Cusmaan oo ka hadlay furitaanka tartanka kubadda cagta ayaa kula dardaarmay dhalinyarada maxaabiista in ay muujiyaan ciyaar wanaagsan isla markaana ay soo bandhigaan xirfad kubadda cagta. insha Allah farxad weyn waaye in maaragtay muxuu ahaa banooni koob aan furno aan dheelno oo maarag xabsiga dhexdiisa aan ku ciyaarno waa noo sharaf ilaahay hadduu idmo waana dadaali doonaa annagoo kaashanayna dawladayna haddii ilaahay yiraahdo maalinta la xiraayna haddii alla idmo waxaan u yeerin doonaa wasaaradda sportska labada dhinac inaad iska celisaan nin kasta uu yiraahdo koobka anaa qaaday mana raba ciyaar la isku dilaayeen ma rabaan waxaan rabaa laacibnimo in la soo saaro garoonka oo lagu imaado waar maasantiin ciyaartiina saacaddan laga bilaabay noo furunta haddii ilaahay yiraahdo. kulan ciyaareedkan kubadda cagta ayaa maanta lagu daafuray laba kooxood oo ku kala ciyaaraysay magacyada Bimondo oo ah dhalinyarada maxaabiista ee ku jirta xabsiga dhexe iyo koox ka socota ciidamada asluubta.